وزير yeelato dawladda federaalku laakiin secret waxa yeelan kartaa xoghayaal commissioner yeelan kartaa taasaaxta qalada waxa way wacyigelinta meeshii sanadkaygu ugu muhiimsanayd aan ka soo qabanayaa dagaalkii calmiskaad oo madaxweynaheenu intuu ka tagay madaxtooyadii xira ciidan fadhiistay saraakiishii u yeedhay ciidamadii maartay rigeeyay go'aansaday inuu dalka dagaal geliyo annagu wacyigelinta waxaanu ka qabanay baan horta hormarinayaa bilowgii hawlgalka waxa la xulay wariyaal ciidamada raaca oo kamerada iyo qoriga isla qaato ciidamada raaca waxa la sameeyay bog hawlgalka u gaara oo astaan gaar leh waxaanu isticmaalay dhammaan noocyada social media oo macallin jaamac dabarani uu u caansan yahay oo TikTok page la yaqaano oo muxuu ahaayay qof kasta adduunka meesha ka Google gareeyo hawlgalka calmiskaad uu soo qabanayo lagadiisa soo qabanayo waxaanu keenay si ay caalamku inoo la ogaadaan waxa aynu ka hortagayno waxa uu yahay wakaalada caalamiga oo wararka ah oo aan raacay anu shakhsiyan raacay wariyaal kalena ay raaceen wasiiro kalena ay raaceen fara badan wasiir Cabdi Fataax baa kamid ah dadkii aanu isu raacnay meesha la yiraahdo muxuu ahaayay magaceed ma maqasheen marka la joogo baladidin baa kor laga aadaya waxa weey dhufaysadii ugu adkaaya laga saaray meesha la yiraahdo kaadilay waxaanu geynay Al Jazeera waxaanu geynay Washington Post waxaanu geynay muxuu ahaayay Reuters oo wada socdaanu geynay kadib waanu sii wadnay Sky News baanu keenay Jazeera marar kale ku soo celinay caalamku waa in la arkay marka waxaynu la dagaalamayna waxa yihiin hubkii baa la arkay daroonadii baa la arkay dhufaysyada adaga ay qorteen ku dagaalameen meydadkoodii baa la arkay maxaabiistoodii baa la arkay adduunku waa in la arkay marka waxaynu la dagaalamayna okay waxa dhinac socday marka dagaal caalami oo kala dhinac socday warbaahin loo ekeysiyay mid caalami ah oo magacyada reer galbeedka loo bixiyay like Middle East Eye inaad yar badan ku aragtay ba laga yaabaa media ku aragtaan ama social media ku aragtaan waxa iska kaashaday Turki waxa iska kaashaday Xuutiyiin waxa iska kaashaday Suudaniis waxa iska kaashaday muxuu ahaay dawladda federaalka waxa lagu furayaa dacaayado inta Google Map la qaado garoonka Boosaasood waxa la oranayaa halkan raadaal baa ku rakiban wuxuu ilaaliyaa gantaalaha lagu ridayo Israa'iil buu ka sii digaa waxa la oranayaa halkan diyaarad kaargad keentay baa la oranayaa diyaaradeen caloosho shaqaaseel bay qaadaysaa oo ku socday Suudaan ka soo dagaalamaya waxa sawir lagu qabtay sarkaal la garanayo oo ciidamada Puntland daraawishta ah oo leeyahay ninkani waa Colombian inaad sawirkiina aragteen baan u malanay in badan oo kamid ah annana waxaan lahayn waa beentooda waa been waanu kala bixi weynay waa isku dhididnay waa isku daalnay Arabi bay wax ku qoreen Ingiriis bay ku qoreen Turki bay ku qoreen Soomaali bay ku qoreen waxay golayaal bay sameysteen social media oo WhatsApp group Twitter ka isticmaaleen Facebook ka isticmaaleen alxamdulillah rabbil alamin waa meel ilaahay wax ka wado xaq u dir baanu ahayn arin baanu hindisnay waxaanu hindisnay nimanka nala dagaalamaya natacadeynaya waa taageerayaashii al-Qaacida iyo ISIS nimankii markaas dib bay nooga degeen والله لا يعنو والله لا يعنو لو بلو دي بينو قدقين أسبوعا بينو قصوا بلاوين هدانو يسينا ملاني منكي حوغا وهي هداد أركتان مركا هداد أركتان ميدل إيست آي هداد أركتان ومحو هاي عربي كو قران أما تركش كو قران أما إنجليش كو قران حتى يوتيوبريس عانا أو سوماليا أو رير بدلانا كغيب قلي حتى انت جوجل ماب كي بوساسو garoonki soo qaateen waa inaad ogaataan inay yahay pirates inay yihiin oo dagaal la gashaan anaga kaliya wasaaradda nagu sii deynina dawladda ku sii deynina waa xaq dastuuri oo idin wada saaran waxaan in yar u bayrayaa dhinaca mandate-ka kale oo wasaaraddu ay ka shaqeyso intii aynu kala maqanayn bishii June oo ayna kulan dadweynaha dawladda isugu soo noqon barnaamijkii tiknoolajiyada ay idinka dambeeyay baan filayaa in badan oo halka joogtaan ay ka qayb gashay waad garanaysaan xiisuhu la iyo qiimuhu ku fadhiyay waxyaabihii lagu soo afjaray waxa kamid ahaa
anteenooyin kan aad aragteen isgaarsiintu harmless inay yihiin wax dhibaato ay u leeyihiin bini'aadanka inaanay jirin marka la isticmaalo oo la daliishado cilmi baarisyada WHO kuwa maartay International Telecommunication Agency ay leedahay marka la kaashado khubaradii Soomaaliga ku hadlaysay waanu Australia ka keenay waanu Kenya ka keenay waanu ka keenay Europe ka keenay oo inoogu yimi barnaamijkii tiknoolajiyadu waxay cadeeyeen dhamaantood cilmi-baarista la isku waafaqsan yahay inay birta taagani aanay ka duwanayn birta baalaha ee korontadu soo marto hase ahaatee signalka saarina uu la macaamilayo oo la hadlayo oo kaliya uu gaarsiinayo akhbaar signal kale oo ku aadan xagal toosan ugu aadan taana waan isla waafaqnay su'aal kama taagno su'aal dambe kama soo noqoto shirkadahuna maartay relief bay dareemeen awal meesha ay siraha bir ka taagteeba waxa la lahay soo dhaweynin marka hay soo dhaweyntii iyaguna waa ka baxeen iyagii dadku way isfahmeen arrimaha dalxiiska waad ogeydeen ay sanadkii la soo dhaafay inaanu ku qabanay toddobaadkii dalxiiska ee Puntland waxay soo jiidatay arrintaasi dalxiisayaal dibadda iyo kuwa gudaha aad iyo aad u tiro badan waxay maalgashi u keentay magaalada Ayl oo caawa haddaad doonto Ayl inaad bari aado waxaad u baahan tahay inaad hoteelka la sii hadasho sii booking garaysato waxaad laga yaabtay inaad isbuuc weydo maalgashi badan oo xagga hoteelada ka bannaan markaa wali Ayl sanad kastana waliba waxaanu ku kordhinay sanadkii dhoweyd in la dhireeyo waxaanu ku kordhinay in qalcadii daawad la dayactiro daraasaadkeedii la dhameeyay insha Allah si dhaqsan loo maartay loo dhameystiri doono waxaan filayaa wax qabadka iyo mandate-ka wax badan baanu ka sheegnay maantana waa ka sheegnay barkaanu joognay baarlamaanka waxaan ku darayaa oo kaliya hal qodob oo dastuurka kamid ah qodobka 53 ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa uu leeyahay arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iskaashi baa waxa ka wada sameynaya iyo wada xaajood dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dhamaantood waxa markaa maanta la isku hayaa sida Cabdi Fataax sheegay wasiir dawladuhuna sagaashanka awoodood ee dastuurku leeyahay afar kamida oo kaliya dawladda federaalku ku takrifali kartaa oo awood u leedahay inta kale dhamaan wada xaajood bay galayaan iyo ka wada hadal waxa maanta markaa la isku hayaa qodobka 53 ee dastuurka waxa ku qoran oo ay diiday dawladda federaalka oo ay xuquuqdii dadka u diiday xuquuqaha waxa kamid ah arrimaha adeegyada oo dhan state-ka iska leh caafimaad haday tahay waxbarasho haday tahay biyo haday tahay koronto haday tahay waxa iska leh including ID-ga aqoonsiga waxa iska leh state-yada iska leh commissioner dadka ka dhaxay dawladaha ka dhaxeeya oo dawladda federaalka xubin ka tahay baa la sameyn karaa oo ku kor joogteeya arrimaha xuduudaha u kala taabaya stateska u kala talaabaya laakiin xitaa waxa qalada inay wasiiro yeelato dawladda federaalku laakiin secret waxa yeelan kartaa xoghayaal commissioner yeelan kartaa taasoo xitaa qalada oo dastuurka federaalka qalad ku ah waxa markaa la isku hayaa maanta waxa ku cad inay tahay dawladda oo jabisay wixii dadka ka dhaxeeyay aad iyo aad baad u mahadsan tahay